waxaan baaq u dirayaa musharaxiinta reer Jubbaland ayaan baaq u dirayaa baaqaas wuxuu ku saabsan yahay geesinimadii ay sameeyeen musharaxiintii faraha badnaayee soddonka kor u dhaafayay ee reer Puntland oo ay ku aqbaleen xildhibaanadii la soo doortay iyaduna inay aqbalaan oo ay ka daayaan inay qaadan waayaan wixii guddidu ay soo saareen waxaan leeyahay musharaxiinta Jubbaland ka soo baxeen ee madaxtinimada doonaya ha ku qancaan xildhibaanada soo baxay ee la dhaariyay hana ka daayaan khalkhalka hana u tartamaan xilka madaxnimada ay doonayaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xukuumadda Jubbaland sida ay u maamushay nabadgelyada gayiga ay ku hayso oo madaxda ka tahay sida ay u soo xushay baarlamaanka sida beelaha degan gobolka ay si miisaan leh oo mugla ay uga soo qaateen iyadoo ay ku hareereysan tahay xilli adag oo dagaal ay ku jiraan dagaaladaas oo ah kuwa mataqaanaa meel dhinac walba kaga furan waxaan leenahay hambaliyo marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa madax dhaqameedkii soo xulay 8 gabdhood dhalinyaro fara badanna ay ku jirto oo aqoon-yahamiina aad baan uga mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay arintaas iyo gabdhahaas maanta xildhibaanada loo dhaariyay shalay ee baarlamaanka Jubbaland waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay noqdaan kuwii dalka iyo dadkaba wax u qabta waxaan halkan digniin uga dirayaa dawladda dhexe ee fulinta fiilla Soomaaliya ka shaqeysa oo caadeysatay inay gacan togaaleyso dawladda federaalka xubnaha kamida ee dawlad goboleedyada inay ka istaagaan waxyaabihii ay ka sameeyeen Hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo doorashadii Puntland faragelintii ay sameeyeen ee daadku qaaday waji xumada iyo wajab xuna ka raacay marlabaadka musharaxiinta waxaan jeclahay inay ku qancaan waxa la yiri faras col maaha fulinin maaha doorashada gala guushu meel ay raacayso ilaah baa garanaya odayaashii dhaqanka ee soo xulay aad iyo aad u mahadsanyihiin waxaan rajaynaynaa tallaabooyinka dhammaan ee doorashooyinka ee guddoonka iyo madaxweynaha Jubbaland in si nabadgelyo ah oo sahlan oo aan shida keenin inay ku dhacdo in kuwa tuhunka qabana waxaan leenahay oo tuhunka qaba oo wax dooranaya ragga meesha la isugu keenay nin walbaaba garashadiisa iyo aqligiisa iyo aqoontiisa iyo ilaahiisa wuxuu la hortagayo buu aaminayaa aamina Puntland waxa weeye maalin walba maamulka jira wax magacaaba inta kalena waa ku qancaan waligeedna ninkii awal joogay kuma guuleysan mar labaad marka raggu waxa weeye kalsoonidiina maaragtay aamina waxaan ugu baaqayaa daneeyaasha Soomaaliya in la garab istaago maamulka Jubbaland iyo maamulada kale la garab istaago sida dimuqraadiyadda iyo shuruucda ay dhigteen sida uu qabo axdiga ku meel gaarka ee u degan dawladda federaalka dhammaantood waxaan kula dardaarmayaa inaad ilaashataan waxa nabadgelyadiina iyo dawladnimadiina inaad ilaashataan oo gacmaha isqabsataan haddan waxaanu ku faraxsannahay maaha in Jubbaland xildhibaan loo soo saaro waa in xasilooni iyo sharci iyo kala dambeyn wax ku soo bilaamaan waxna ku dhamaadaan waxaan rabnaa haddaan Puntland nahay annagoo haddaan nahay xildhibaanada Puntland oo aan matalayna shacabka reer Puntland waxaanu jecelahay inay ku noolaadaan reer Jubbaland nabad xasilooni nabadgelyo musharaxiinta dadkiina iyo dalkiina iyo diintiinaba u naxa waxyaalaha laga sheegayo iyo waa dhibka taagan iyo gacmaynta ninna meel kale ha u dhagtaagin waxa aad ku tahay dad waa reer Jubbaland waxa aad ku joogtaana waa reer Jubbaland meel kasta aad joogtid doorashada Jubbaland oo shirgudoonkii iyo tii madaxweynuhu baarsan tahay in si xor ah oo xalaal ah oo nabadgelyo ay ku dhici doonto gabagabadii kulanka waxaa soo xiray kulankan ay yeesheen xildhibaanadan ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland oo ahaa 3 meelood meel ka mid ah golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada mudane Ismaaciil Maxamed Warsame oo markaas isagu si gaar ah ugu hambaliyay xildhibaanadan cusub ee soo baxay waxaan rajaynaynaa sidii amniga iyo nabadgelyada ahayd ee ku dhacday xulista golaha wakiilada Jubbaland inay doorashada guddoonka iyo madaxweynuhuna ay u raacdaan sida hufan ee quruxda badan aan daawanaynay waxaan rajaynayaa in maaragtay ay sida ku dhamaato waan u hambaliyaynaynaa anagu baarlamaanadu waa walaalo Soomaaliya meel kasta oo baarlamaan
maaragtay uu ka jiro dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo kalaba xaq waxay noogu leeyihiin inaan u hambalyayno saaxiibada iyo weeyaan hambalyaanu leenahay waxaan kale oo xildhibaanada aan u soo jeedinaynaa mas-uuliyaddii Jubbaland garbihiinay saaran tahay waxaan rajaynaynaa in codkiinu wuxuu go'aan ka gaarayaa dadka Jubbaland qof walba marka tiradiina guud maaragtay la qaybiyo intaas oo kuna qof xaamilo sawdaa tihiin waxaan rajaynayaa si mas'uuliyad ku jirto inaad codkiina aad u gudataan maxamed bile geelle warbaahinta dowladda Puntland Garowe